sheekh diintu maxay ka qabtaa in qof muslim ah nasabkiisa wax laga sheego ilaa heer la gaarsiiyo in guurka loo diido? dadku siduu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam dhammaantood aadam baa dhalay, aadamna carruur ka soo jeedaa. cid nasab kaga fadli badan ma jirto, laakiin waxa lagu kala fadli badan yahay waa alla ka cabsiga iyo iimaanka iyo akhlaaqda waay. sidaas daraadeed xaqiraadda bini aadamka lagu xaqira nasabka siduu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waa qodobada ka dambeeya jaahiliyadii, diin la'aantii waxyaalaha ka dambeeya ka mid tahay islaamka ka horeysay. wuxuuna nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha xunxun oo aad u liita oo ummadda qaar ka mid ah ayna ka tagi doonin oo dad uun haysta la arki doono, weligeed aan dhammaan doonin buu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam. sidaas daraadeed ninna kama nasab roonid, ninnana kama qiimo badnid. waa jaahiliyadii laga dhaxlay, gaalada laga dhaxlay waa inay mujtamaca dhexdiisa ka baaba'do. waxa ka dhalan karaay oo muaamalada ah oo guurka ah oo la dhaqanka ah adar maxaad kaga fiicanta? diin haday noqoto waad liidataa, haday dhaqan noqoto waad akhlaaq xun tahay, haday fidna noqoto waad fidna badan tahay. ninka qiimo badan, ka diin badan, ka qurux badan, oo ka xoolo badan, oo ilaahay kaaga dhow ba inta soo istaagtaa waxaad leedahay muxuu ahay nasab madid ya nasab maxalda oo sida isu dhan adiga hada nasab gaari u baahan waxa sidana aad u taalay. marka waxa jaahiliyada waxay u baahan tahay waa qodobada in aad loola dagaalamo u baahan oo si wada jira loola dagaalamo oo in la baabi'iyo u baahan. waxaan aad uga xumahay inay Soomaalina walaalahoodii la dhashay qaar ka mid ah ay dulmi ku yasaan ay ku xaqiraan, gaalana ay u gacan haadiso oo ay tiraahdo haddii walaalihiin sidan idin galeen annaga idin dhaaneen noo imaad. soo nasiib xumo ma waa nasiib xumo weyn. waxaas in la baabi'iyo weey, waana dambiyada aad ka waaweyn bay ka mid tahay. aahaarteeda iyo raadkeeduna ma fiicna. dhibaatooyinkana haysta ee dal iyo dadba haysta waxyaalaha ay ka dhasheen sababtoo waxa ka mid ah dulmiga dadka loo geystay qaybo muhiim ah ka tahay, laana dulmiga midhiisu waa kharaariye wax xun baa ka dhashay. wallahu a'lam. hadaan u nimaadno markay qoyskaan ka horta guurka intaan u dhahay islaamku uu nagu tarbiibinaya wayna jeclaysiinaya. dhalinyarada waxaa lagu tirtirsiinayaa inay guursadaan. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم حتى هذه فقيرين منك إن يكونوا فقراء لن يرى بضنبا مركا ترى محاكا كرسوه ماشي لا تعنتها ولي نيو لما تنكي دافتي صوتن كي وكسي دوزاي يا قربا أفرتن كي ولي قارين دانا أفرتن كله ولي أنبوسن محاد ولي الضوب لطهاي ولا تكاليفتي ما شاء بضطي أتنكي وقاليوبي عرورتي مصاري مسؤولية يا وإذا يقول إن يكونوا فقراء ولا بلغوا قصد إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والله واسع عليم خزائن إلهي باب بوحده. أسمع مركا ولا نقول التفسير يعني. هل كان ولي بوسنة بوسنة. النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني لو قدر ويا معشر الشباب. ويا شباب كذا يعني نكي تورثوها يلو مدينة. يا ومارك الدنيا يلبس. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. كاسوا كي درقي ده كلمة هي بوركي وصوم كلولي. مركب بوركي ولبها هي إن وأنا ونفسه. جالس نمنا ويبقى هاي اللي يرى الشيء. نيد ونفسنا ويبقى هاي. وحكى لبها هي فلا بوي ونفسنا هو راعو. وقبل دونيسان هذا مثلا قفك صوع هاي يرى كل قبل ما محمد السعودي هذا صنم لا صنم صدق صنم أفر صنم قبل ما صوع هذا ويك سمح محمد السعودي أفر صنم ولنا نجاح من يعني أبويا قولنا من يعني وأفر صنم حاكم حسن حاكش القيسان لا ودي حاكش القيسان أفر صنم يا هي صدق صنم حيث شيء ثاني ده نقول شيء حاشا على شيء جعيل
الجعيل يأتي بعد الزواج كان هو شيكو يا شيكو بينه انت وحكرته هذا أي كرسي درتي وحن يعني إعلام كي بطيء وقالوا هو رأيتك وحكوا الحريران يملا يسكو أركان يوعي لنا بينج هذا قبل يجي يقول الجوري غير كل شيء هو قل كي يجي جيفته هو سريرته يجي جيفته يسقونه وقارنها كذا برتن كذا نك كذا كجو أيام ولا شيء كيسايا هو صور هذا يسوق ريا هو كاميرا هذا يسوق فريا مركزا وحلال وحرانة ودنا مراد بدن بارك كذا عيد بتوي بدن أنا كذا مركز ترى ويسي دباتي سيسي الرماها كوساب سنقول كهر أو داعي أو دباتا زنا كذا علي وحرام أو كبائر الذنوب وهكذا علي يعني جرائم وين وخطر أو دنيراني كوه تهديد وهكذا تؤكمل حيالها تهر إلا سكيل داري أي تاي يعني سأل الله بقول إن رنتاس قول كوين وضفي عن أمنا وتدير بوشاي وقبل يسيبوا إلى يادان الجعلام يا ودي سيبوا أركيا قبل أركيا إن أركتور رؤية شرعية شرع الإسلام قابل قوة وأدم تبسن إذا أسكاركتو وجه إلى أركتو أنت شرعه هو من اللي أركتو إيه كده ويديسو دمر أدرسته أصحاب أدرسته قرابة أدرسته ضد أدرسته وكذا وهي كذا هذه مركز معك قالوا وضلاش عمر الريال كذا كدوم هذه يجر سؤاشا والنقص والنقطة وأصلا ياخذ بصيرة سميني محنكو شيء أقول معاكم مركو إنما أنا ويديني هذا معنا ويديني ياخذ بصيرة لا سكو قادر يسند دي ويلك قدر ينوين ريال ينوين وحبها كوين بان سكو سند يبقى صالح waxaa igu darnay maalin dhawr baa waxay soo qoraysaa xilada waan murugaysnahay waan dhibaataysnahay hay ninkii baa ifurila wuxuuna ku noqday nin xun oo dhibaato badan oo maaragtay mashaakil badan markii wax badan igu soo celiyay hay oo markii horena reerkayga aan ogeyn iyayo aan ogeyn baan isguursanay markii dambe hadda wuxuu leeyahay kuma furaayo markii uu xumaaday waa la yaabay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin walba aan kusii ogaadaa arrimaha حكمة إلهي سبحانه وتعالى ولي وحري نكاح شرطي إن قبلنا لنكاح إلا ولي الأمة دمركو هذه أب الله خيام كروان مساكين قبلها هو لا تأس PhD حتى هذا هيس كذا ما حد شيء هذا سكول واحد يا PhD سو شهادة إنك سكول الجامعة على قاطع مصر هذا يوضع تومسكين والخيام مركا يعني شهادة وين